kobcinta wax akhriska carruurta ku hadasha luqado badan. Lite om vi håller på med bokstavsarbete och börjar lite med vikt. Okej. horumarka waxbarasho ee dhallaanka iskuulka waxa uu ku xiran yahay awoodda wax akhris iyo qoraal ee dhallaanka. qoraalkan waxaan ugu talagalnay inaan talooyin dhowr ah ugu soo gudbino waalidiinta haysta dhallaan ay dhowaantan waxbarashada bilaabeen. carruurta oo dhammi way baran karaan akhriska iyo qoraalka. carruurta dhowr af ku hadasha waxay haystaan fursad ay ku bartaan dhowr luqadood. su-aasha taagani waxay tahay, luqadee ayaa wanaagsan in lagu bilaabo? waa kee habka wanaagsan ee loo baahan yahay in la raaco? aqoonta afafka kala duwan waa in loo arkaa hadiyad. ku hadalka luqadda dhowr waxay sahlaysaa haddii aad afkaaga hooyo si wanaagsan u taqaano. waxaana jira baaritaan cilmiyeed xaqiijinaya in carruurta dhowrka af taqaanaa ee dhigata casharada luqadda hooyo ay xagga waxbarasho kaga fiican yihiin carruurta kale ee ku hadasha luqado kala duwan. waxaa sidoo kale dhallaanka u sahlan barashada luqadda Swedishka. guud ahaan waxa ugu sahlan inaad barato qoridda iyo akhriska afka uu qofku sida fiican u garanayo. hadday noqon lahayd dhanka erayada, aaradda, dhawaaqa iyo naxwaha. badiba carruurta gasha iskuullada Swedishka waxay akhrinta ku bartaan afka Swedishka iyadoo aan loo eegin afka hooyo ee dhallaanku ku hadlaan. xiisadaha luqadda hooyo ee dugsiyada laga bartaa had iyo goor kuma filna in akhris lagu barto. laakiin ku bilaabidda Swedishka macnaheedu ma aha inaan ilmuhu baran karin wax ku akhrinta iyo qorista afka hooyo. marka ay ku guulaystaan xirfadaha akhriska ee hal luqad, waxay sahlaysaa barashada luqadda kale. haddii ilmahaagu barto luqadda guriga lagaga hadlo, waxaa kuu fududaanaysaa inaad ka taageerto horumarkeeda dhinaca akhriska. laakiin waxaa jira waxyaabo badan oo aad qaban karto haddii ilmahaagu marka hore akhriska ku barto Swedish. midda ugu muhiimsan waxa weeye inaad isticmaasho luqaddaada koowaad marka aad la hadlayso ilmahaaga, xataa haddii ilmahaagu kugu jawaabo Swedish. carruur badan ayaa mara muddooyin ay jecel yihiin Swedishka, laakiin isku day inaad diido oo aad ku dhigto afkaaga hooyo marka aad ku hadlayso. ilmahaagu wuxuu wax badan oo luqaddaada ah ku baran doonaa habkaas. waa fikrad fiican haddii aad ugu sheekayso sheekooyin carruurnimadii ku soo martay. haddii aad u qaado heeso xanaanayn ah ilmaha. waxyaabahaasi wax weyn bay ka taraan horumarka dhinaca afka ee ilmaha waalid ahaan. xilliyadaas waa marka aad ilmahaaga siin karto fursad uu ku hormaro waxna ku barto. si wax akhrisku u fududaado, waxaa lagama maarmaan ah dhawaaqyada luqadda uu ku hadlayo dhallaanka ee waafaqsan xarfaha qoran, iyo in sidoo kale la ogaado waxa xarfaha qorani tilmaamayaan. erayo badan oo aad taqaan waa wax fiican markaad bilowdo barashada akhriska iyo qoraalka. taasi waxay ku fududaynaysaa waxa qoran, waanay fududahay in la aqoonsado haddii ay ku yaqaanaan luuqo kale. carruur badan oo dhowr luqadood taqaan ayaa afkooda hooyo iyo Swedishka u kala isticmaala marxalado kala duwan. tusaale ahaan, waxay afkooda isticmaalayaan marka ay
ka hadlayaan waxyaabo la xiriira dareenkooda, xaaladaha qoyskooda iyo guriga oo ku nool yihiin, laakiin doorbida Swedishka marka ay ka hadlayaan waxyaabo la xiriira iskuulka. Sababta oo ah waxay erayadan ku barteen iskuulka. Qaar badan oo ka mid ah erayada ilmahaagu iskuulka ku barto waa kuwo la xiriira maadooyinka ay iskuulka ku bartaan. Si aad qoraal u fahanto, waxaad sidoo kale u baahan tahay fahan guud oo ah habka qoraalka loo dhiso. Waa fikrad fiican inaad ilmahaaga wax u akhrido afkiisa hooyo, kadibna aad u sheegto waxa sheekadu ku saabsan tahay, kadibna aad ugu xiriiriso waayo aragnimadaada. Tusaale ahaan, adigoo weydiiya, weligaa sidaa ma dareentay? Maxaa xasuusataa markii aan tagnay? Iyo waxa la midka ah. Wada sheekaysiyada kuwa la midka ah waxay ilmahaaga u noqonayaan sal wanaagsan dhanka akhriska iyo fahankaba. Ka waran haddaad ilmahaaga ag fadhiisato waqtiyada ay ku hawlan yihiin buugaagta iskuulka ee Swedishka oo aad uga sheekayso waxay ka hadlayaan. Habka ugu fiican waa adigoo isticmaala afkaaga hooyo marka aad hadlayso. Markaas buu ilmahaagu maqlayaa waxa erayada iskuulka ay afkiisa hooyo ku yihiin. Aad dib uga sheekayso sheekooyinka. Ka hadlidda sawirada buugta waxay sidoo kale horumariyaan xirfadaha luqadda. Haddii dhowr qoraallo oo kala duwan aad isku lifaaqdo, waxay ilmahaaga waayo aragnimo u yeelanayaan maadada, erayada iyo cabiraadaha badiya aan ku iman afkaaga hooyo. Dhammaan hawlahani waxay wadada u xaadhaan koboca wax ku akhrinta afka koowaad. Way fiican tahay inaad kulan la yeelato macallinka ilmahaaga ee fasalka iyo tababaraha afkooda hooyo si aad ugu wada hadashaan waayo aragnimada luqadeed ee ilmahaaga. Tusaale, maxay yihiin xaaladaha ilmahaagu awoodi karo inuu isticmaalo afkiisa hooyo ee dugsiga iyo waqtiyada uu guriga joogaba? Maxayse yihiin fursadaha ilmahaagu isticmaali karo ee afka Swedishka? Buug ka keen guriga si aad macallinka fasalka u tusto luqadda qoran ee aad guriga ku isticmaasho. Wax weyn bay u taraysaa macallinka inuu ogaado, tusaale ahaan, in xarfaha Swedishka qaarkood aanay ku jirin luqadaha kale ama kuwa lidigooda ah. Waxaa dhici karta inaad afkaaga hooyo aad qoraalkaasi midigta ka bilowdo u akhrintiisa. Haddii aad u baahan tahay macluumaad intaa dheer, waxaa jira dhowr warbixin oo qoraal kooban oo laga heli karo bogga internetka ee Skolverket, hay-adda maamulka waxbarashada. Tusaale ahaan, bogga dadyowga ku hadla labada luqadood, waanada qoysaska dhowrka af yaqaan, isku badbedelidda luqadaha, horumarka luqadda iyo aqoonta ee carruurta dhowrka af taqaan iyo dhalinyarta, iyo iskuul, mustaqbalka ilmahaaga iyo dimuqraadiyadda ilmaha awgeed. Qoraalada kooban waxaad ka heli kartaa bogga internetka ee www.skolverket.se. Sidoo kale, ururka aan dawliga ahayn ee Kodknäckarna fure jajabiyayaasha ayaa leh qoraal kooban oo la yidhaa waalidku waa khayraadka carruurtooda. Waxaad qoraalka ka dalban kartaa www.kodknackarna.se.